karootadu waa xidid khudradeed taas oo badanaa la sheego inay tahay cuntada ugu wanaagsan xagga caafimaadka. dhadhan ahaan waa mid nafaqo sare leh. karootadu waa il weyn oo qani ku ah beta carotene, fiber, vitamin K, potassium iyo antioxidants. karootadu waxay ka mid tahay cuntooyinka ay Soomaalidu taqaano lagana helo dhulkooda. karootadu waxay leedahay faa'iidooyin badan oo aan ahayn kaliya inay aragga wax ka tarto. waxaynu halkan ku soo koobaynaa cudurro karootada ka hortag ahaan lagu qaato. cholesterol-sha cilmi baaris lagu sameeyay dad qaba cudurka cholesterol-sha oo ku nool dalka Ingiriiska waxaa ka soo baxday in heerka cholesterol-sha ama subagga dhiigga uu hoos u dhacay 11% markii ay qaateen in ka yar rubuc karoota maalin kasta muddo 3 usbuuc. sida awgeed khubarada caafimaadku waxay talahaan ku soo jeedinayaan haddii xanuunkan lagu sheegay ama aad halis ugu jirtid ku dadaal cunista karootada si aad uga maarantid dawooyinka loo qaato. caafimaadka wadnaha daraasad ay sameeyeen cilmi-baarayaal u dhashay dalka Sweden waxay soo daabaceen qoraal ka hadlaya sida ay karootadu uga hortagto cudurrada wadnaha iyagoo isbarbar dhigay dadka joogteeya cunista karootada iyo dadka aan qaadanin. daraasadan ayaa lagu xaqiijiyay waxtarka karootada ee wadnaha iyo badqabkiisa. dhiigkarka karootada waxaa ku jirta potassium waxay jirka u tartaa inay waasiciso ama ay fidiso xajmiga xididdada dhiigga khaasatan marka cadaadiska dhiigga uu kaco. waxa kale oo karootada ku jirta maado kale oo loo yaqaan coumarin oo iyaduna cadaadiska dhiigga xakameyntiisa ka qayb qaadata. haddii dhiigkarku kugu cusub yahay isticmaal karootada maalin kasta oo joogtay adoo cadaadiska dhiiggana cabiraya si aad u ogaato waxtarka karootada. difaaca jirka karootadu waxay ka mid tahay cunnada difaaca jirka sare u qaada taas oo firfircooni dheeri ah ku abuurta unugyada cadcad ee dhiigga. waxay shaqadoodu tahay la dagaalanka cudur dhaliyaha waxay jirka ka difaacaan caabuqa noocyadiisa kala duwan. dheefshiidka sida khudradda cagaaran oo kale ayay karootadu iyana u wanaajisaa dheefshiidka sida inay sare u qaado shaqada caloosha iyo mindhicirada qofka. waxay kale oo ay ka hortagtaa calool istaagga ama calool fadhiga taas oo yareysa halista samaysanka babaasiirta. kansarka karootada waxaa ku badan beta carotene maadadan waxay yareysaa halista kansarka khaasatan kansarka sababka sida lagu arkay daraasada la qaaday. haddii qofku maadadan uu ka qaato 2.7 mg maalin kasta inay yareynayso halista kansarka 40% markii lagu tijaabiyay dadka sigaarka aad u caba. cilmi baaris kale waxaa lagu arkay inay yareyso halista kansarka malawadka ku dhaca. taasi waxayna tusaysaa in karootada ay leedahay faa'iido weyn haddii la joogteeyo. indhaha karootada waxaa ku jirta maadada beta carotene taas oo faa'iido weyn u leh indhaha kana caawisa aragga. marka karootada la cuno maadadaas waxaa la geeyaa beerka kadibna beerku wuxuu u bedelaa vitamin A. kadib vitamin A-ga waxay isha u sii bedeshaa maadada muhiimka u ah isha ee u baahan tahay ee loo yaqaan rhodopsin waana maadada u qaabilsan aragtida midabka. maadada beta carotene waxay kale oo ka hortagtaa dhaawaca macaanka ama sokorta isha u geysto iyo samaysanka caadka indhaha fuula. ilkaha karootadu waxay kordhisaa saliifada ama candhuufta waxaana la dagaalantaa bakteeriyada afka ku dhalata taas oo keenta af urka. sidaasna waxay ku yareysaa samaysanka suuska waxaana sare u qaadaa caafimaadka iyo badqabka ilkaha. daraasado ayaa soo jeedinaya cunista karootadu ay u roon tahay ilkaha. faaliga ama shalalka cunista karootada maalin kasta waxa ay yareysaa halista faaliga ama shalalka 8%. daraasado badan oo la qaaday ayaa si adag u taageeray saameynta karootada ay maskaxda ku leedahay. cilmi-baaris kale ayaa lagu sameeyay bukaano qaba cudurka faaliga ama shalalka ayaa la arkay in kuwoodii qaatay xaddi badan oo ah maadada beta carotene taas oo laga helo karootada ay noqdeen kuwa ka badbaaday cudurka faaliga ama shalalka. macaanka ama sonkorta karootadu waxay xadidaa heerka sonkorta ee dhiigga waxa aanay ka hortagtaa howlgabka ama firfircooni yarida ku timaada unugyada soo saara insulinta ee ganaca. baaritaano la qaaday ayaa waxay soo jeedinayaan in dadka qaba sonkorta ama macaanku inay dawaahaan u isticmaalaan iyagoo aan wax sonkor ah ku darin. miisaanka sida cuntooyinka kaalorigu ku yar yahay karootadu waxay dhargisaa qofka iyo inay yareyso qaadashada cunto badan oo isku xigxigta xilliga cuntada. haddaba siday aaminsan yihiin xeeladayaasha cuntada iyo miisaan dhimistu iyadoo sababta la eegayo isticmaalkiisu waa mid waxtar leh marka ay noqoto miisaan ridista.